البيت مدن عبد العزيز حسن محمد مدحوينها جبلان مدن أحمد محمد إسلام مدحوينها هيرشويلة مدن محمد عبد الواري مدحوينها كحيين كقلبه دوميها برلمان كحيين ندى قرياشا وزيرة الدولة حبناها كدولة فدرالكا حلدبان ندى مرت شرفته دمان شعبينها كسر قلب المناسبات إذا ماذا قلب كسيدة فنانين تا يابوانين تا بعد صحافته انت حسين انت انا حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha saaxiibadaya iyo wafdiga ballaaran oo sharafta la socday mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar walba waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada waxaad joogtaan guryihiinnii iyo deegaanadiinnii iyo dadkiinnii aad la joogtaan marti maahidin laakiin waxaad ka soo safarteen xafiisyadiinnii iyo guryihii aad gaarka u deganaydeen ee marti kale ma diidin haddii intaas wax ku maqan yihiin ama intaas wax ka dhiman yihiin waa idinka raalli garanaynaa waxaan rabaa in dadaal badan la baxshay walaalaha si fiican loo soo dhaweeyey waxaan u mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee reer galmudug gaar ahaan caasimadda sidaad madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya u soo dhaweyseen sidaad guryaha iyo serviska iyo deegaanada iyo adeegyada iyo furfuraanta iyo weji furnaanta u tusteen waan kaga mahadcelinayaa in badan madaxda walaalaheena waxaan leeyahay waa laydin jecel yahay inaad sii joogtaan baa la rabaa haddii ilaahay yidhaahdo howlaha kale iyo shaqooyinka gadaal jirana ka balballama teleefoonada ku xalliya muddo sii jooga mahadcelinta runtii aad mudan tihiin ma dhammayn karo tan reer galmudug mudan yihiinna ma dhammayn karo dhinac walboo la taabto haddii laga eego caasimadda kaliyahan xuseeye waxaanan xusin dadka hadday tahay reer miyiga xoolaaleyda iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan sida runtii la tusay dhaqankii soomaalidu siduu ahaan jiray anigu waxaan keenay intaasoo geela anigu waxaan keenay intaasoo ariya anigu waxaan keenay intaasoo maalkiya aad iyo aad baan meel aad joogtaan iyo dhinac walba tihiin idinku ammaanaya intaas kadib walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaa noo soo gabagaboobay shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isugu yimaadeen si aad og tihiin ama la socotaan noogu soo gabagaboobay jawi ka turjumaya xaaladaha dalka ka jira iyo howlaha na hor yaalla iyo sida ay tahay in loo wajaho tawfiiq iyo talo ku soo dhammaaday wuxuuna noogu xirmay ugu dambayn fayskiisii koowaad taladaas iyo arrintaad aragteen iyo sida loo tilmaamay xalka iyo xaaladda hadda jirtaa siday u wasco karaan waxaa noo furmi doona wejigii labaad oo ay ka soo qayb geli doonaan sidaan rajaynayno madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo rajaynayna maalmaha soo socda inuu noo furmo insha allah kaasna waxaan rajaynaynaa shirkaa isaga ah sidii quruxda badnayd
sharafta badnayd loo sugu afgartay kii hadda dhammaaday inuu kaasina noogu dhammaado nooguna qabsoomo. reer galmudug soo dhoweyntiinna iyo martigelintiinna iyo ka qayb qaadashada talada halkan taalla ee loo fadhiyo caasimadda galmudug ee dhuusamareeb sidiinni u sii haya sidiinni u sii wada waan hubaa inaad xiise u qabtaan waan hubaa inaad diyaaratiin. soo dhoweyntuna waa sideedii madaxdii noo imaanaysa madaxdii qaranka ah iyo waftiyada kale la socdaba insha allah waxaan leenahay iyagana waxaan sugaynaa inaan soo dhoweyno waxaan sugaynaa inaan sidaas iyo si kasta qurux badan ba u soo dhoweyno insha allah. waxaan khudbadda caawi meesha lagama rabo waa mahadcelin iyo gobasha inaan kasoo qaybgalkeeda madaxda uga mahadcelino sharafta leh iyo inaan weli diyaar u siinahay inaan sii wadno inta laga gaarayo go'aamo ku fadhiya waktiga isaga ah ee kala guurka ah. waxaan leenahay nin la yidhaahdo madaxweyne maxamed cabdi waaraan xifaaleeye maanta wuxuu yidhi sow reer galmudug ma ahan waxa goglaha dhigaya oo soomaali isugu yeeraya oo hawsha hal la heshiiyo meel hal la wada dhiga dhahaya wax soomaali u dhiman oo nabadii ma jiraan yidhi. annagoo u sheeg waxaan ku yidhi madaxweyne waare reer galmudug warankoodii yaan bay ka tunteen waxaan nabad ahayn oo ay ka shaqeynayaanna ma jirto hadday dhexdooda tahay iyo hadday soomaali dhexdooda tahay. nabadii baad horseed ka tihiin isafgaradka iyo wadaxaajoodkaad horseed ka tihiin waxaad muujiseen sida aad diyaar ugu tihiin firfircoonidiina iyo kaalintii laydinku yaqaanay. waxaan leenahay waa idiin dardaarmayaa sidaas ku sii wada waanan hubaa madaxda soomaaliya iyo soomaalina waa idiin heelan tahay inay idin dhegaysato gobashiinana hoggaansanto lala ixtiraamo waana lasoo ixtiraamo. allah idin sharfo madaxda sharafta leh madaxweynayaasha saaxiibaday ah waxaan leeyahay iyo martida kale wafdiga kale aan dhihi lahaa marti meesha ma joogtee in dhammaantiin guryihiinna ku nasta aanu wada joogno aanu sii joogno aanu wada jirno aan dhammayno inta ayna sugaysa ee hawl noo taalla ee soomaali maanta la gudboon oo ku qotanta aayaha iyo mustaqbalka dhow ee arrimaha doorashooyinka iyo sida la isu afgaran lahaa. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.